inta badan wadamada caalamku waxay leeyihiin shirkado diyaaradeed oo u gaar ah dawladda taas oo dhaqaale kala duwan uu ka soo galo si goonin ah oo xambaarta astaanta dawladnimo. dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday qorshe dib loogu soo celinayo shirkadii diyaaradaha Somali Airlines dhowr iyo 20 sano kadib oo aysan shirkadaasi shaqaynin sabab la xiriira dagaaladii sukeeye ee Soomaaliya. gudoomiyihii hore haddana dib loogu magacaabay xilkii uu ka hayay Somali Airlines Maxamuud Maxamed Guuleed ayaa ka warbixiyay dadaalada ay ku doonayaan inay dib ugu soo celiyaan shirkadii diyaaradaha Somali Airlines xilli uu u waramayay TV-gan Home Cable. waxaan noo qorshaysan sida hadda lagu magacaabay ama xilkii markaasi uu dhiibay uu sheegay dib u dhiski Soomaaliland la soo celiyo Somaliland inay hawsheedii bilowdo. waa tahay de shirkad meel cilaa ka bilaabmi karta ma jirtee in gacan la is siiyaan weydiistay. xaaladda Soomaaliya hadda la socdana waa ogtiin si gacan la isku siina adag tahay oo meelihii tan ka muhiimsanaya ama askar ha noqoto ama meelo kale ama mushaharad muhiima dad maalin walba ummadda u dhimanayo waxyaalaha iska jira dhaqaale ma hayso. marka saasaa la igu cadeeyay dhaqaale badan ma hayna guulad wixii tabartaa ku dadaal waan ku rajo weynahay inaan soo celino taasaan leeyahay anigoo rajo weyn ka qaba dawladda inay gacan lagu siin doonto. Maxamuud Maxamed oo ka jawaabay su'aal ahayd sida ay shirkadooda diyaaradaha Somali Airlines ku heli karto diyaarado maadaama aysan xilligan wax diyaaradaha gacanta ku haynin ayaa hami wanaagsan ka muujiyay shirkado shisheeye oo saami wadareed ay noqonayaan. shirkado kale aan la heshiinay inay Somali Airlines diyaaradahooda lagu qoro 150% ka yeelano dhaqdhaqaaqa ganacsi wixii ka soo baxaya ayagana ay suuqaas Soomaaliya maanta aad u wanaagsan ay inta kale uga faa'iidaan. tiiba shirkado iga qaateen fikradaas haddana waa isla wadnaa insha Allah haddii suurto haddii aan wax kala dhicin dhawaan in saas duulimaadka lagu bilaabo waa shirkad diyaaradaha wadata iyo Somali Airlines oo suuq iyo magaci wadata. gudoomiye Maxamuud Maxamed oo isha ku hayay shirkadaha diyaaradaha gaarka ee Soomaaliya ka shaqeeya ayaa qeexay in qorshaha cusub ay doonayaan ay tahay mid aan qatar ku ahayn shirkadaha gaarka loo leeyahay. marna waa maya marna waa maya haddii sharciga shirkadda Somali Airlines ee qaranka uu u dhigay lagu dhaqmo waa maya ilaa muran ma jirayo sharcigan ku wada dhaqmaynaa. haddii kaas laga leexdo saha ilaa markaas nin walba wuxuu bilaabaya inuu doodiisa furto uu ku dagaalamo wuxuu had maanta gacanta ku hayo. diyaaradihii ay horay u lahayd shirkadii Somali Airlines ayaa qaarkood waxa la sheegay in xilligan ay yaalaan wadamada Germany iyo waliba Suudaanka Imaaraadka Carabta halka qaar kale ayana ay ku burbureen dagaaladii sukeeye ee dalka ka dhacay. Maxamed Cusmaan Xabiib, Home Cable TV, Nairobi.